بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. waxaynu insha allahu tacaala maanta oo ah maalin axada bisha ramadaan ay ku beegantahay 17 bisha sagaalaad 1440 oo ku beegan miilaadiyada 10 bisha shanaad 2020. waxaynu qaadanaynaa maadadeenii luqa carabiya galaaska lixaad madrasaduna waa madrasada liilajidda alnamuudajiya. sabxada cashirkeena uu ka bilaabanaya waxa weeyaan 780. waxaana idiin dhigaya macalinka la yihahdo ustaad axmed sheekh maxamed cabdallah. waxaynu soo qaadanay cashirkii hore oo ahaa almuxaafadatu calaa sixati albi'ati fi lislaam. cashirkii ayumaynu sii dhamaystirana haddii la yidhaahdo. qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahi tacaala sareeye tayibun waa alla wanaagsan weeye. yuxibu waxaanu jecel yahay atayiba wax shayga wanaagsan ama wanaagga ayuu jecel yahay. nadiifun ilaah waa mid nadiifa. yuxibu waxaanu jecel yahay nadaafata nadaafadda. fanadifuu nadiifiya afniyatakum daaradihiina ama wajahadihiina nadiifiya iyo waduurukum iyo guryihiina ama aqaladiina nadiifiya. kamaa qaala sidoo kale nabigu wuxuu yidhi albasaqu fi lardi dhulka oo candhuuf lagu tufo ama xaakada lagu tufo khati'atun waa gef ama waa dembi. wakafaaratuhaa kafaara gudkeeduna waxaweyaan radmuhaa in la aaso xaakadii ayuunba kafaara gudkeedu noqonayaa. ومعروف waxaa kaloo la ogyahay ana albasaqa in candhuufta ama xaakada cala alardi dhulka lagu tufaayo yanqulu inay soo qaadayso ama usoo gudbinayso alkathiira in fara badana min alamraadi magaranaysaay xanuuna ah. wa akhtaruhaa waxaana ugu khatarsan xanuunka la yidhaahdo maradu sal tiibeyda. maradu sal waxaa layihahdaa tiibeyda ama xanuunka ku dhaca feedhaha ama dhaxanta ayay keenaysaa. qofkii xanuunka qabay ayaa meel xaakadii ku tufaya, dabeetana markay qalasho xaakadii ayay dameysha soo raacaysaa. qofkii caafimaadka qabay ayay magaranaysaa ayay soo gaaraysaa ayay gelaysaa. sidaasuu cudurkii ku qaadayaa. alinsaan bini aadamka yu'athiru waxa uu saameyn ku yeeshaa fi bii'atihi bii'adiisa. faqad yuxawilu waxa uu bedeli karaa ardaha alkhaaliya dhulkeeda ka maran min alxayaati nolosha ka maran cumraanan deegaan ayuu u bedeli karaa. bini aadanka markii uu meel yimaado dhul maran oo cidlo ah oon cidi ku noolayn ayuu magaalayn karaa. wayubadil waxa u bedeli karaa samtaha musnaanteedii xarakatan dhaqdhaqaaq iyo xarako ayuu u bedeli karaa. waqad yuziilu waxaanu baabi'in karaa aljibaala buuraha liyuqiima makaanaha si halkeeda uu magaranaysayo ugu bedelo ama uga taago almudana magaalooyin si uga sameeyo. halkii buuraha si uga sameeyo magaalooyin ayuu buurihii baabi'in karayaa. aw yamudda fiiha ama uu ka sameeyo aduruq wadooyin iyo waljadaawil jadwalo. jadwaladu waxa weeyaan jamcu jadwal wahuwa cibaaratun can majra mutafaric min nahrin aw yushaqu fi lardi lisaqyi. waxaa looga jeedaa jadwalka magaranaysaayay il ama iliilad kasoo baxaysa webiga oo magaranaysaayay lagu waraabiyo beeraha. ama bini aadankii laftiisii ayaaba jeexayoo intuu jeexay sidaa u jeexay si biyaha roobka ay usoo galaan magaranaysaay beerta waxaa lahahdaa jadwal. kaasaa jadwal la yihahdaa. wayabni waxaa kaluu dhisayaa qofkii bini aadanka uu dhisayaa assuduuda biyo xidheenadii ayuu dhisayaa. wayasrac waxaa kaluu beerayaa alashjaara geedihii ayuu beerayaa aswaaran iyaga oo sida kamithli aswaarin sida iyaga oo aad moodo sida suur oo kale ayuu u dhisayaa. geedihii ayuu beerayaa iyagoo aad u dhaadheer. aswaaran suurka waxaa layihahdaa gidaarada waaweyn ee magaalooyinka lagu soo wareejiya waxaa layihahdaa magaranaysaa suur la yihahdaa ama derbi. tasuddu taasoo celinaysa ama magaranaysaay ka hor istaagaysa zaxfa rimaali inay kusoo siiqdo ciiddu kusoo siiqdo magaranaysaay magaaladii ama meelihii beerihii inay kusoo siiqdo. zaxfi waxaa leedahay gurguuradka asalkiisu arrimaalna waa ciida. wa min annaas dadka waxaa ka mid a mankaasoo huwa isaguba caduwun cadow ah laduudun daran libii'atihi bii'adiisa. alcaduw laduud waxaa layihahdaa alcaduwu shadiid alkhusuuma waa cadowga doodiisu ay aadka u daran tahay. ama waxaa layihahdaa alcaduwu shadiid alcadaawa
cadowga cadownimadiisu ay aadka u daran tahay. fiihim waxaa ka mid a waxaa ku sugan dadkii man yudliqu dukhaana sayaaratin qof ma garanaysaaye gaadhiga qiiqiisa dadkii kusoo daynaya fa yufsidu dabeetana fasaadinaya alhawaa hawadii. waman baa ka mid a yunshiu samaynaya almasaanica warshooyinkii walmacaamila macmaladii. macmalka iyo masnacu waa isku mid markii dhinac laga eego. waxaa kaloo macmal la yidhaahdaa mukhtabarka ama laabka, isagana waxaa la yidhahdaa macmal. waman baa ka mid a yunshiu samaynaya almasaanica warshadihii walmacaamila macmaladii fii qalbi alabniyati dhismooyinka ama deegaanka bartankiisa ka samaynaya. fataqmuruha waxay ka buuxinaysaa dadkii bidukhaaniha qiiqeeda. waman baa ka mid a dadkii yulqii ku tuuraya almiyaaha alqadira biyaha qurunka ah ama biyaha uskaga ah ee wasaqda ah ku tuuraya fi shawaarici wadooyinka amba laamiyada. fayatajamacu dubaabu waxaa kusoo ururaya duqsigii iyo walxasharaatu xasharaadkii. dabeetana halkaas waxaa ka dhalanaya cudurraa ka dhalanaya. waman yutruk waxaa ka mid a qof ka tagaya fadalaati tacaami cuntada hadhaageeda kaga tagaya amaama beytihi gurigiisa hortiisa. cuntadii lasoo reebay ayuu guriga hortiisa ku daadinayaa. waman baa ka mid a dadkii yukhallif kaga tagaya baqaaya almawaad alghidaa'iya hadhaagii cuntooyinkii la cunayay sida ma garanaysaa hadday noqoto khudradii iyo fawaakihidii iyo raashinkiiba hadday noqoto wixii soo harharay kaga tagaya fil aswaaqi suuqyada ayaa dadkii ka mid ah. intaasoo dhan waa caadooyin aan fiicnayn oo loo baahan yahay ma garanaysaaye in laga iska ilaaliyo. fadalaad marka waxaa leedaha waxyaabihii soo harharay ayaa leedaha. baqaaya almawaad alghidaaiyana waxaa leedaha tusaale ahaan raashinkii oo kale amba ma garanaysaaye xabuubtii khudradii oo kale amba ma garanaysaaye fawaakihidii oo kale. waxaasoo dhan wixii xumaaday iyo wixii soo haray oo looga tago fil aswaaqi suuqyada waxaasoo dhan waxay keenayaan iyagana cudur bay keenayaan. intaasaynu cashkeena maanta ku jirjeen haddii la yidhaahdo ardayay haliska soo qaybo wixii inoo dhiman insha allah waynu dhamaystiraynaa. hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.